السلام عليكم صاحبي سoo dhawaada maalin wanaagsan habeen wanaagsan xilli walba ay ku tahay wanaagsan oo wacan qisadana maanta waxay ku saabsan tahay saxaabiga la yiraahdo Salman al-Farisi saxaabiga garanaysan cajiibka ah ee nabiga iyo saxaabadiisa uga sheekay qisadiisu asaga la fahantiisa hadaba hadalka aynu u dayno Salman al-Farisi asaga ayaa sheekadiisa ka shaqeynaya waana qiso cajiiba oo ruuxaantii aad ku raaxaysan doontaan Salman wuxuu yiri waxaan ahaa nin dhalinyaro ah oo reer Faris ah gaar ahaan ka soo jeeda magaalada la Asbahan oo Iran ku taala maanta gaar ahaan tuulo la yiraahdo Jayan abahay wuxuu ahaa ayuu leeyahay ninka xukuma magaalada ayuu ahaa oo wadankaasi meeshaasi haysta ayuu ahaa wuxuuna kamid ahaa dadka ugu sharafta badan magaalada oo caanka ka ah oo la yaqaano wuxuu ahaa dadka maalqabeennada ah magaalada markii aan dhashay abahay aad ayuu u jeclaaday taasoo ku kaliftay inuu gurigaba igu haysto oo ii diidaba inaan banaanka aado oo aan baxo oo booqasho iyo aado ay ii diiday ayuu leeyahay aab jaceelka uu qabo darteed si ay waxba ii gaarin oo wuxuu isleeyahay wiilkaaga hadii uu baxo banaanka aado arma wax ka gaaraan sidaa darteed aabo sidii gabar maqabiyada ah ayuu guriga igu hayn jiray inta dabadeed aabo wuxuu lahaa beer ayuu lahaa taasi oo dalaga nooga soo guri jiray oo halkaas ayuu noogu keenin jiray anigana guriga ayaan ugu xiraan jiray oo aad jaceelka uu qabo darteed wuxuu leeyahay Salman markaa maalmaha kamid ah waxa dhacday in aabo uu ka mashquulay beertii arrimihii magaalada darteed needna wuxuu yiri aabe maanta adiga baxaysid beertii baad aadaysaa soo dalaga nooga soo guraysaa oo aniga ayaad matalaysaa maanta aad baxay haye aabe ayaan iri waan baxay markii aan baxay oo magaaladii aan ka tagay oo beertii aan aaday maraan dhexdaas marayo ayaa waxaan maqlay qoliyo kaniisad ku cibaadeysan iyo kaniisad ku tukanay deedna waan ku leexday waad garanaysaa nin dhalinyaro ah wax loo diray waxa weeye markuu baxo xaafadaha adiga marka wax lagu diray waad garanaysaa markaad dhalinyaro tahay markaad baxdo waa meelaha ku leexanaysaa waxba waxaad aragtay waad u istaagaysaa nimankii kaniisadda markaan ku leexday waa la dhacay waxyaabo ay sameynayaan waxyaabo cajiib ah ay sameynayaan anigu waxaan ahaa markii hore jaceelka aabo uu jeclaa darteed wuxuu ii dhiibay inaan maamulo ka noqdo diinta majuusiyadda oo dabka la caabuday ayaan shiday maadaama dab la shiday waxaan la yaabanaay waxyaabaha aan samaynayno iyo diinteenu dhanba inay tahay inaad dabka caabudo haddaba daawaday alxamdulillah haddaad maanta ilaahay u sujuudto oo ilaahay kugu kallagaystay inaad muslim tahay alxamdulillah maanta dad baa dhalaxaanta caabudo dad baa dabka caabudo dad baa qoraxda aragtida markii halka ka soo baxdo madaxa ugu dhiga oo caabudo adigu haddaad muslim tahay alxamdulillah ilaahay adaa mahadsan kun iyo kow jeer waa inaad ilaahay u mahadnaqdaa Salman wuxuu leeyahay waxaan aad u bartay diinta majuusiyadda ilaa aan noqday ninka dabka shida oo hari habeen qaabilsan dabkaasi sidoo san maalin iyo habeen ba ku dami lahayn ninka ka shaqeeya aan noqdo markaan baxay oo beertii aabaan aaday waxaan dhaxda ku sii maray niman nasaara oo kaniisadooda ku cibaadeysanay ayaan sii maray deedna waxaan la dhacay cibaadada iyo sidii cibaadeysanaya maalintii idil baan daawanay ilaa gabalkii ka dhacay nimankii waan wareystay waxaan ku yiri diintan asalkeedu xagee buu jiraa waxay ugu yiraahdeen dhulka Shaam ayuu jiraa beertii baan aaday guriga aabay ayaan ku soo laabtay hadii aan soo laabto duqii waxaan imiday magaaladii dhan ciidamo kacay meel walba ay iga raadiyay leegu daalay duqii murugaysan baan u imid marka aan u imid buur aab xagee jirta maanta waan ku weynay maxaa saan ugu gashay deedna waxba kama qarin waan sheegay waxaan ku yiri aab maanta waxaan arkay markaan ka tagay niman kaniisad ku cibaadeysanayaan arkay ayagii baan la joogay ilaa gabalku iga dhacay wallahi maan arag diin ka fiican oo bini'aadamku ay haystaan waxay haystaan baana ka fiican waxna waan haysan duqi wuxuu yiri maya diintaada iyo diinta aabayaasha ayaa ka fiican taasna khayr male anna waxaan ku yiri maya wallahi ilaahay baan ku dhaartay diintooda ayaa ka fiican midaan abu ii baqay markaan inta ay wuxuu ka cabsaday inaan diinta galo deedna wuxuu sameeyay guriga ayuu ugu dhaxay sidaan guriga wuxuu raa fariin ayaan dirsaday nimankii kiristaanka kaniisadda joogaan waxaan ku yiri haddaad aragtaan niman Shaam ka imaanayo Shaam ku laabanay soo ogeysiyo deedna waxa kadib waxa yimiday niman socota oo ka yimiday dhulka Shaam una laabanay markii la isoo sheegay waxaan ku yiri markii baxayaan soo ogeysiya way soo ogeysiyeen deedna xarigi ayaan iska jaray nimankii ayaan la raacay sidii ayaan kaga tagay wadankii aan jeclaa oo aan ku baxay dhulkii Shaam ayaan tagnay markii aan Shaam tagnay waxaan ku iri magaaladan aad joogtaan wadanka ninka idinku caalamsan ee idinku aqoonta badan waa kuma deedna waxay igayeen nin kaniisadooda jooga oo kaniisadooda u qaabilsan oo boob ah ama wadaadadan kiristaanka ah ay igayeen oo kaniisada qaabilsan oo baadiri ah ninkii baan u tagay waxaan yiri nin baadi diineed ee haysabaan ahay oo baadi goob diineed ku jira waxaan rabaa inaan noloshayda ka dhiman inaan ku adeego oo kula joogo diintan aan ka barto uu soo dhaweeyay halka ayaan in muddo la joogo ninkii markaan in muddo wax ka baranay baan waxaan ogaaday inuu yahay nin aad u xun inuu yahay wuxuu ahaa nin dadka sadaqada fara ku buuriyay inay wax la baxaan deedna markay dadku sadaqada soo aruuriyaan sadaqadii masaakiinta aan siinin asagu meel luuqa ku leexsado asagu kaydsada ayuu ahaa ninkii wax la joogaba waa uu geeriyooday oo tii Allah ayaa u timid ajishi dhawaata ifka joogi mayse deedna ninkii dadkii kiristaanka ayaa yimid say u duugaan ninkan markaasaan ku iri ninkan asaga saaxiibkiin wuxuu ahaa nin aad u xun ayuu ahaa deedna wuxuu yiri maxaa dhacay markuu sadaqada idinku buuriyo oo sadaqaysataan sadaqadii muu bixi jirin asaga kaysa jir ayaan ku iri waxay yiraahdeen wiiliyo warkaad sheegayso waa inaad u keentaa xaqiiqo haddii kale adaa ka jawaabay waxaan yiri waxaad tusinayaa meeshii uu ku kaydsan jiray inna tusay yiraahdeen halkii uu ku kaydsan jiray ayaan sidii ku geeyay aan tusay deedna waxay ka soo bixiyeen 7 weel oo dahab oo ka buuxsaday ninka asaga ah way ku xanaaqeen meydkiisii may duugina way daldaleen oo way salbiyeen oo meel ay intay ku xireen
ayay dhagaxaan kala daaleen, dhagax ayay ku garaaceen. kaniisadiina waxay u kaasteen nin kale oo boob kale baadiri kale keeneen. kii baan anugu la joogay. ninkaa dambe nin aad u wanaagsan buu ahaa oo cibaado badan oo sadaqo badan oo dadka wax alla wuxuu farasiyo u samaynayo oo wanaagsan buu ahaa. waqti dheer baan la joogay asagana ilaa ay asagana tii alla kaga timid. markuu sakaraatul mawdkii ku soo xaadirtay oo dhiman raba waxaan ku eriniyahow waan u jeedaa dee halkiigana waad ka warqabtaa inaan baadi diideed ku jiray oo socdaal ahaa oo waxa weeye kula joogay. hadda adigiina inaad dhimanaysa u badan tahay yaad ii dardaarmaysaa xaggeen aada xaggeen qabtaa yaa diitan sii haysto oo aan aada. wuxuu yidhi wiilkaygii xilli xun baa la marayaa, dadkii diinta way bedeleen. waxaan garanayaa hal nin oo diinta aan haysto oo Muusil meesha la yiraahdo jooga. Muusil waa Ciraaq, maanta waad garanaysaa. ninkii markuu geeriyooday waan duugnay, markaan aasnana anigana waan tilmaansaday. sidii baan ku baxay, waxaan gaaray meesha la yiraahdo Muusil baan tagay. Muusil markaan tagay ninkii asaga baan raadsaday, waan helay, waan isu sheegay hebel baa ii soo ka diray. ninka asaga magacaagu soo hebel maahan haa, ninka asagaad garanayso hebel oo saaxiibatihiin oo Shaam joogay baa ii soo ka diray. sidii baan kugu imid. nin waxa weeye baadideed ay ku jirta ayaana ahay. wuu soo dhaweeyay, wuxuuna ahaa nin aad u wanaagsan. waa la noolaaday in muddo, wuxuuna ahaa nin saaxiibkiisa oo kale aad u wanaagsan oo fiican oo cibaado badan ayuu ahaa. in muddo ayaan wada joognay. asagana ma uusan nagaanin oo tii alle ayaa u timiday. markuu geeriyoonayay waxaan ku yidhi war saaxib, waad ogtahay xaaladayda, nin socdaala baan ahaa, xaq raadisa maxaad i faraysaa? wuxuu yidhi nin yahow adduunyadu waa xaalku waa xun yahay. hal nin oo meel la yirahdo nasiibin jooga ayaan garanayaa wax diintan ku taagan. dadkii oo dhan diinta way bedeleen. ogow nasaaradu diinta markii nabigu soo dhawaa diin toos oo nasaara qof loogu imaanayo wuu yaraa. diinta way bedeleen. waxyaabaha ayagu jecel yihiin ku darsadeen. waxyaabihii ay naftooda ay u arkayeen inay ku adag tahana way bedeleen. sida rajmiga iyo waxyaabo badan oo diinta nasaaradu u qabtay way bedeleen. marka wuxuu yidhi ninka asagaa nasiibin meesha la yirahdo jooga, ninkaasaad aadaysaa. ninkaasaa aan ku ogaa inuu yahay nin xaqa ku dhegan oo aan diintiisa bedelin. waxaan kadibna wuu geeriyooday. markuu geeriyoodana waan aasnay. deedna waxaan qabtay nasiibin meesha la yirahdo. nasiibin waxay ku taallaa Turkiga ayay ku taallaa maanta. halkii ayaan tegey. ninka asagaa ayaan u tegey, waan isu sheegay. markaan isu sheegayna wuxuu yidhi soo dhawow. wuu soo dhaweeyey, waa la noolaa. in muddo baan la joogo, diinta ka baranayay, adeegayay, u shaqaynayay. wuxuuna ahaa nin wanaagsan sida labadiisii saaxiib ee asaga ka horreeyay oo kale. nin wanaagsan oo cibaadaysta ayuu ahaa. markaan in muddo diinta ka baranayo sidaan kula joogo ayuu wuxuu yidhi tii alla ayaa u timid. oo markii geeridii kusoo xaadirta ayaan war saaxib, waan arkaa xaaladaadu inay xun tahay, niyo ila dardaaran intaadan dhiman, xaggeen qabtaa, diintiyaan kasii bartaa, ayaan la joogaa, ii sheeg. Salmaan saxaabigan waa saxaabi qaali ah. baahidiisu waxay ahayd baahi diineed oo diin ayuu raadinayay, maadaama uu diin xun haystay markii hore uu dab la caabudayo oo dadkaas dabkooda caabudo uu ka soo jeeday. maadaama uu diintii xaqaad helay uu ku adag yahay, wuxuu rabaa markuu ninkan dhintaba nin kaloo caalima inuu kaga sii gudbo. ninkii nasiibin joogay markii geeridii kusoo xaadiraysay wuu la dardaarmay. wuxuu yidhi waxaad aadaysaa meesha la yirahdo Camuuriya. nin jooga ayaad aadaysaa. Camuuriya waxaa la sheegay inay ku taallo Turkiga maanta, Istanbul. markii ninkii uu geeriyooday waan aasnay buu yidhi. deedna waxaan tilmaansaday meesha la yirahdo Camuuriya. sidii baan ku aaday. Camuuriyaan tegey. waxaan helay ninkii wadaadka ahaa oo asna nin waayeel oo da ah. ninkii baan u tegey, waan isu sheegay. waxaan leeyahay war ninkaasaan ahay, wadaadkaan nasiibin jooga ayaa isoo tilmaamay, sidaas ayaana kugu imid. waxaan doonayaa inaan kugu adeego, diintan aan kaa barto. soo dhawo ayuu yidhi. way soo dhaweeyey, aad buu ii soo dhaweeyey. waan la joogay diinta in muddo ka baranayay. waxaan bilaabay markaan imid magaalada Camuuriya. ninkii asagaana aan u shaqaynayay inaan gelin aan u adeego, asaga gelin aan shaqaysto oo intaan duurka aado aan qori soo guro, magaalada keeno, deedna dib aan u iibiyo, kadibna aan halkaa lacag ka shaqaysto. ogow shaqadu waa sharaf, shaqada ayaana muhiimsan. intaad bini'aadamka tugsan lahayd waa la shaqaystaa. marka wuxuu yidhi Salmaan waan shaqaysan jiray, gelinna diintaan baran jiray, wadaadkaan u adeegi jiray, gelinka kalena waan shaqaysan jiray. deedna wadaadkii asna ma daahine tii alle ayaa u timid. markii geeridii kusoo xaadirtay waxaan idhi war halkayga waad ogtahay nin socotaa baan ahay, socod ku jira, xaaladaasna aad arkaysana ku sugan, marka maxaad leedahay, yaad ii dardaarmaysaa? ninkii wuxuu yidhi wallaahi adduunka dushiisa kuma ogi maanta ruux haysta diintiisa ku dhegan ma garanayo. nasaara diintii way bedeshay, qof maanta diintiisa haystaa ma jiro. laakiin waxaan kuu sheegayaa maanta waxaa dhawaaday xilligii carabta uu kasoo bixi lahaa nabi, magaalada Maka kasoo bixi doona. halkaas haddaad awooddo inaad qabato, halkaa aad oo carab aad, nabi baa soo bixi doona, magaalada Maka ka soo bixi doona, wuu ka hijroon doonaa, waa lagu dhibi doonaa. magaalo timirta ku badan tahay oo dhagaxaan madow ku taalo buura dhexdeeda ah ayuu u hijroon doonaa. halkaas ayuu aadi doonaa. haddaad awooddo inaad aado dhulkaas, niyahow dhulkaa aad. qof dabo maanta kirishtaana oo wax ka raadinaysa diintiisii haystaa ma jiro. deedna wuu geeriyooday. markuu geeriyoodana waan duugnay. markaan duugnana waxa waaye shaqadii aan iska sii watay, magaaladii baan sii joogay ilaa ay magaaladii aan joogay Camuuriya ay ka yimaadaan qolo caraba oo reer Bani Kalbi ah oo safar ah oo ganacsato ah. deedna qoladii baa la kulmay. waxaan ku yidhi haddaad i gaarsiisaan dhulka carabta waxaan idin siinayaa xoolahaygi.
marka salmaan wuxuu yiri waxaan intaan shaqaysanayay lacag baan helay marka lacagtii aan helay waxaan samaystay xayn ariga iyo xogaa lo ah in xoolo haysta ayaan noqday oo xayn ariga iyo xayn lo ah ayaa ii joogtay oo qorihii aan duurka ka soo guriyay aan maxaa waaye aan ka iibsaday qolada reer bani kalbi marka waxaan ku yiri xoolaydii qaata la'dii qaata arigii qaata dhulka carabta un gaarsiiyay halkaas ayaa dan weyn iga jirtay idna waa diyaar bay waan ku kaxaynaynaa markay hawloodii ganacsigooda dhameysteen jidka ay qabteen anna way wadeen xoolina waan ku wareejiyay waxaan soo soconaba markii aan soo gaarnay duleedka magaalada Madiina ayay nimanka ayaga qiyaameen markaan marayna waadi la yiraahdo waadul qura oo duleedka magaalada Madiina ku yaala ay qiyaameen waxayna iga dhigeen adoon ayaa tahay dheeseeda banaanba dadna waxay iga iibiyeen nin yahuudiya oo halka deganaa ayay iga iibiyeen sidii baan waxaan ku noqday nin adoon ninka yahuudiga ayaan u shaqayn jiray oo u adeegi jiray ilaa in muddo asaga aan u shaqaynay oo uu adeegay ilaa maalmaha kamid ah oo magaalada Madiina ka yimaado mid yahuudi kala ah oo asaga ilmaadeer yihiin oo reer bani qurayda waxay deganayeen gudaha magaalada Madiina dadna ninkii way sheekaysteen kadibna wuxuu ku yiri niyo adoon laan baa haysay miyaad adoon haysaa shaqo fiican oo shaqo garanay wuxuu yiri adoon fiican baan hayaa hadda iga iibsanayso iga iibso dadna sidii ayuu iga iibiyay yahuudiga reer bani qurayda ayaa soo iibsaday wuxuu soo waday wuxuu keenay magaaladii Madiina markaan arkay magaaladii waxa igu soo dhacday tilmaantii uu soo tilmaamay ninkii baadiriga ahaa ee reer Amuuriya ee aan muddo la joogay inuu ugu sheegay magaalada timirta ku badan tahay magaalada dhagaxaan madow leh buuran ku dhex taala tilmaamihii ayaa waxaan ka helay magaalada Madiina sidii ayaan ku iri warheedhe waa bishaaratani oo halkii ninkii ku sheegay oo nabiga inuu soo hijroon doono tilmaanta uu kugu siinay ayaad maanta joogtaa nasiib ayaad leedahay in muddo ayaa ninkii u shaqaynayay yahuudiga reer bani qurayda maalmaha kamid ah anoo geed timira saaran oo timirta u gurayo sayidkii oo yahuudiga bani quraydan oo hoos fadhiya geedka ayaa waxa u yimid mid kale oo qaraabo yihiin oo yahuudi kala deedna wuxuu yiri war balaayi Allah ku riday nimankii reer bani qayla waa Aws iyo Khasraj waa saxaabadii Aws ansaarta ayaa waxa la yiraahdaa reer bani qayla hooydood ayaa qayla la jiray oo ayada dhashay marka wuxuu yiri war balaayi Allah ku riday nimankii reer bani qayla maanta waxay ku shirsan yihiin meesha la jiray Quba oo waxay ku xoonsan yihiin soo dhaweynayaan nin sheeganaya inuu nabi yahay makana laga soo ceeriyo halka ka soo tagay maka ka soo ayagu yimid ayay soo dhaweynayaan salmaan wuxuu yiri markaan intaan maqlay geedka ayaan saaraa waan gariiri aniga idil in wadaadkii yahuudiga aan u shaqaynay inaan ka soo dul dhaco ayaan ku dhawaaday marka inta aan maqlay farxad darteed ayaan la gariiri ayuu qanna ay igu qabatay deedna si orada ayaan geedka uga soo degay waan soo fadhiistay markaas war maxaa tiri war ku celi maxaa dhaad deedna sayidkii ayaan tu xanaaqay baahan dhangalaasa arbaaxsho wac uusi oo arbaaxsho ugu soo wuxuu yiri maxaa ka galay wariya adiga ma yaan yiri waa iska baxay waa iska tagay markii in muddo la joogay ayaan nabiga wili aan soo galin magaalada Madiina marka ninkii Amuuriye wuxuu soo siiyay sad tilmaamo maka ka soo jiran doono Madiina imaan doono inuu leeyahay calaamado oo sadaqada uu san cunin hadiyad inuu cuno labada garbood dushooda dambana inay kaga taalo calaamada nabanimada inay halkaas kaga taalo shaambad nabanimo sheegaysa inay labada garbood dhexdooda dhanka dambe ay kaga taalo tilmaamihii anoo hayso si aan u ogaado ninkii la ii sheegay saxda inuu yahay iyo inuu yahay nin kale ayaan waxaan sameeyay timir ayaan intaan qaaday baa waxaan ugu tagay meesha la yiraahdo Quba soo joogo wali aan soo galin magaalada Madiina deedna waxaan ku iri markaan u tagay waxaan socod ah asxaabna ay la socdaan dhulkiisina laga soo diray waxaan rabaa inaan xogaa yaro sadaqa ayaan wadaa oo timir ah inaad timirtan cunto ayaan rabaa oo aan idin siiyo adiga iyo asxaabtaada oo iga gudoomay deedna asxaabtiisi ayuu siiyay waxbana ma uusan ka cunin asaga maadaama ay sadaqa ahayd deedna markaan intii arkay baan waxa naftayda ku iri tan waa tii koobaad waad haysataa waan iska laabtay yahuudiga waan iska laabtay waan iska shaqeeyay waan iska khidmeeyay maalin kale ayaa dana aan soo qaatay timir waan soo baxay saxaabadii sallallahu alayhi wasallam baan u imid waan u keenay waxaan iri hadiyadan ayaan wadaa maantay hadiyadu way qaaday asna waxbuu ka cunay asxaabtiisana wuu siiyay way la cuneen aniguna markaas naftayda waxaan ku iri tanina waa tii labaad mid saddexaad baa ii hartay oo ah inaan helo calaamadda nabanimada labada garab dhabarka dambe kaga teelay dhexdooda waan iska laabtay maalin kale ayaan soo laabtay oo nabiga jooga xawaalihii la dhigi jiray baqiicul qarqad ayaan imiday soo saxaabi qaraabadiisa kamid ah oo geeriyooday aasaya halkaas ayaan ugu imiday deedna dhabarkiisa dab ayaan ka wareegay waan la wareegay markaan go'ba u saaraa markuu dareemay inaan dhabarka ayuu saxaabigu nabigu gartay inaan wax raadinayo deedna go'i ayuu ka rogay labada garab dhexdooda markuu go'i ka rogay ayaan waxaan arkay calaamadii nabadnimada deedna waan is celin waayay waan ooyay kadibna shahaatika ayaan ku dhawaaqay markaan ashahatay ayuu nabigu dib isoo fiiriyay deedna wuxuu yiri kaalay oo maxaad aadniyo arintii baan kaga sheekay iyo halkii aan socodka ka soo bilaabay ee Asfahan magaaladii Iiraan ku teelay kadib inaan Shaam tagay kadibna aan Ciraaq tagay halkay Mosul deedna aan ku laabtay kadibna Turkiga halkaas nasiibin iyo Amuuriye
iyo addoonnimadeydii inaan soo rafaaday intaasna xaq raadinayo ayaa nabiga kaga warramay. nabiga qisada aad buu ula yaabay. deedna wuxuu yidhi asxaabtiisii ayuu ii tilmaamay, wuri bal asxaabta sheekadaada uga sheekay, waa sheeko la yaab loo cajiib. saxaabadii ayaan kaga sheekayey ayuu yidhi Salmaan sheekadaydii ayana way la yaabeen. deedna intaa yahuudigaagii imise ayuu addoon baa tahay? haa. ninka yahuudiga waxaad ku tirahdaa si aan u xoroobo wax iga dalbo waan kuu samaynaya. markii aan u sheegay yahuudigii inaan xornimo rabo, yahuudigii arrimo la yaab loo mucjisaa ayuu ugu xiray si aanan u xoroobin. wuxuu yidhi 300 geed oo timira ayaa tallaalaysa, deedna waa inay baxaan oo ay mireeyaan. markay miro keenaan ayaad xoroobaysaa. si lamid a haddana waxaa laga rabaa 40 uqiyadood oo dahaba. yacni su-aalo xilliga mucjiza mustaxiila ayuu shuruud mustaxiila ayuu ugu xiray. deedna nabiga ayaan u sheegay. nabigana saxaabadii ayuu wuxuu ku yidhi walaalkiin kaalmeeya. saxaabadii ansaar muhaajiriin waxba ma haystaan, dad eber ahaayeen waxba aan haysan oo xoolodii kasoo hijrooday. ansaar oo dhulka deganeed timirtana lahayd ayaa waxay ii aruuriyeen abuurkii ayay ii soo aruuriyeen. ogow waxaad garanaysaa dadka beeraha ka shaqeeya yaqaan timirta waxaa loo abuuraa sida mooska loo abuuro oo jiridka ayaa lasoo aruurinaya. deedna ansaar waxay soo aruuriyeen abuurka ayay soo aruuriyeen. nabiga wuxuu yidhi qaada beerta yahuudiga la taga, markaad godadka qodaan oo aad diyaarisaanna ii waca, aniga imaanaya anaana tallaalaya. sidaas ayay asxaabtii ku baxeen oo waxaa la tegay beertii yahuudigii beertiis markii la tegay reer bani qurayda beertii ayay tageen, godadkii ayay diyaariyeen. kadibna nabiga loo yimid, nabigu wuu baxay isagii abubakar iyo cumar. beertii baa la tegey, nabigu bismillaahi allahu akbar dhahayay, godka ayuu gelinayay timirta. kullina wuu tallaalay nabigu sal slam ilaa hal geed mooye oo cumar uu tallaalay. timirta ayada ahayd muddo sanad gudaheeda ayay ku baxday oo sidaas ayay ku weynaatay oo sanad gudaheed ayay miraysay ilaa hal geed oo cumar uu tallaalay mooyaane. halkii geedna Salmaan ayaa soo laabtay nabigu u sheegay. deedna yaa tallaalay yiri nabigu. deedna cumar haddaba wada cumar bin khataab ayaa yiri rasuulallah aniga ayaa geedka tallaalay. sidaas ayuu u bixi waayey oo adigu maadan tallaalin. deedna rasuulkii geedkii dib ayuu u bixiyey, dib ayuuna u tallaalay. sidaa ayuuna geedkii kusoo baxay mar labaad oo geedihii kale uu kaga daba tegey. sidaa ayayna ku baxday beertii ninkii yahuudiga ahaa. Salmaanna xornimadiisii sidaa ayay kusoo laabatay. 40 uqiyana nabiga ayaa dhagax loo keenay dahaba. deedna wuxuu siiyey Salmaan oo Salmaan sidaas ayuu dahabkiina isaga bixiyey. timirta isagana ay hal sano gudaheed ku baxday. mucjiso nabi ayay ahayd. timirta waxay ku baxdaa 5 sano ayay ku baxdaa si ay sheegaan dhulka dadka yaqaana beertaanka timirta. ogow addoonnimadaasi saxaabiga wax badan bay dhaafisay, khayr badan bay dhaafisay. dagaalkii Badar bay dhaafisay, dagaalkii Uxud bay dhaafisay. Salmaan Khandaq ayuu yimiday oo intii ka horeysay wuxuu ahaa addoon ayuu ahaa oo ninka yahuudiga ay u shaqeynayay oo khayrka fara badan ayaa ku dhaafay addoonnimo darteed. waad garanaysaan inuu dagaalkii Khandaq ka qayb qaatay. qaybta ugu weyn asaga uu lahaa waa ninkii keenay in godka la qodo magaalada Madiina lagu wareejiyo, maadaama reer Faris ay sidaas sameyn jireen. markuu cadowga ka badan uu magaalada soo weeraro ee magaaladu god ay qodan jireen. fikradiisii ayaana lagu badbaaday dagaalkii Axzaab ama Khandaq. aad garanaysaan. intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa qisada kooban ee saxaabigaas Salmaan al-Farisi oo ahaa saxaabi cajiiba. haddii halkan soo gaartay aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalka aad daawatay. kusoo birbirahayna bulshada aad baad u mahadsan tahay. subscribe sar channelka waa channelkaaga. soo dhawow muuqaalka xiga la soco. aad baad u mahadsan tahay.